Bismillah. inkasta oo aan daraansanahay halista uu xambaarsan yahay cudurkan loo yaqaan COVID-19 ee la sheegay in uu keeno viruska loo yaqaan coronavirus, haddana waxaa muhiim ah in aan aad loo baqan oo la miisaamo cabsida iyo rajada. Sidaas darteed ayaan halkan waxaan ku diyaariyay 10 sababood oo aadan uga baqan cudurkaas loo yaqaan COVID-19. Dhimashadu way kaaga dhowdahay cudurkan loo yaqaan COVID-19. Macnaheedu inta cudurkani socday waxaa dhintay kumanaan qofood oo u dhintay sababo kala duwan oo aan wax xiriir la lahayn cudurkan. Ma aha cudurka ugu dilaasan. Waxaa la sheegay cudurkan inuu dilo 5% wax ka yar dadka uu ku dhaco, laakiin waxaa jira cudurro qof kasta oo ay ku dhacaan dila 100%. kulli sabab ayaad u dhiman lahayd. Dhimashadu waa lama huraan, laakiin kulli sabab ayaad u dhiman lahayd haddii uu noqdo cudurkaasna waa un sabab. 4 iskama badbaadi kartid. waa dadaali kartaa, laakiin waxaad ogaataa in dad badan oo dadaalaya ay u dhinteen cudurkaas ayna iska badbaadi waayeen. 5 qadarta kama faka kartid. haddii Ilaahay kugu talagalay inaad u dhimato cudurkaas, yaa kaa badbaadinaya. 6 ma ogid waxa dhacaya mustaqbalka. ma ogid in cudurkaana kugu dhici doono goorta iyo goobta uu kugula dhacayo, iyo inuu kugu dhici doono aadna ka bogsoon doonto, iyo inuusanba kugu dhici doonin. maxaad ka ogtahay? 7 dadka uu dilo waxaa ka bada dadka aanba dareemin. waxaa la sheegay dadka badankood inuu cudurkaani soo mara ayagoon wax astaan ah muujin. sidaas darteed ma ogid inaad ka mid noqon doonto kuwa aan dareemi doonin haddii uu xataa kugu dhaco. 8 waa imtixaan ama waa ciqaab. kulli cudurkaani ama waa ciqaab xagga Alle ka timid, ama waa imtixaan oo waa in lagu sabraa. 9 cudur kasta waa loo dhimi karaa. ma ogtahay inta qof ee u dhimata hargabka caadiga ah sanad kasta? 10 cudurkan aad ayaa loo buubuuniyey. waxaa jira warbixino badan oo run iyo been waxa ay yihiin aan la garanayn oo wareegaya warbaahinta. sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan oo aan laga ogaan cudurkan. waxaa jira waxyaabo maalin kasta soo baxaya. waxaa jira waxyaabo hore loo sheegay oo la beeninayo. marka waxaa ku wareegsan cudurkan buunbuunin aad u badan iyo warbixino aan lagu kalsoonaan karin oo aad ugu wareegsan cudurkan. inkasta oo sidaas niri, haddana waxaa lagama maarmaan ah in aan qaadano talo kasta oo ay nasiyaan dhaqaatiirtu oo lagu yareyn karo cudurkan saameyntiisa. haddii ay ahaa lahayd faraha oo mar kasta la dhaqdo, dadka kale oo laga fogaado, iyo wixii lamid ah.